Diblomaasi Media ayaa daawanaysa ku soo dhawaada dhageystayaal warbixin aan markan oga hadlayno wararkii ugu dambeeyay qayladhaanta colaadeed ee waqooyiga dalka Itoobiya ka imaanaysa. Dowladda Itoobiya ayaa kumanaan ciidankeeda kamid ah waxay u dhaqaajisay xadka Tigray iyadoo halkaasi ay ka tallaabeen waxaana ciidankaasi hogaaminaya Getachew Reda iyo General Tasatar waa militariga Itoobiya iyo waliba qaybo kamid ah jabhado ay markaasi Getachew Reda ay mas'uul ka ahayeen oo goobo kala duwan lagu tababarayay. Tigrayga qaylo ay afka furteen waxa warqad cabasho ay u direen beesha caalamka. Sidoo kale Tigraygu waxay sheegeen in badan oo dadkooda kamid ah duqeymo lagu laayay waxaana intaasi ku dareen in uu burburay heshiiskii Pretoria ee u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo Tigrayga. Canfartu dhankeeda waxay sheegtay in dhibaatadii ugu badneyd Tigraygu ay deegaankooda ka geysteen isla markaana ay dad laayeen deegaano horlana ay gacanta ku dhigeen. iyo Abiy Ahmed oo ku wajahan wadanka Imaaraadka Carabta oo loo badinayo in uu ka soo warsanayo ama uu soo weydiisanayo sidii ay ogala qayb qaadan lahaayeen dagaal dhaxmara iyaga dowladda uu hogaaminayo iyo Tigrayga. Haddaba xooga badan ayaa daawadayaal iska soo daba dhacaya waqooyiga Itoobiya ee moodaa inuu galayo dagaal kale oo lagu kala samri doono. Xogihii ugu dambeeyay ilaa iyo inta aynu war ka helnay ayaynu saaxiibayaal idinla wadaynaa. Waa 8 November sanada 2025. waa soo dhawaada saaxiibayaal warkaasi oo faahfaahsan. haddii ugu horeynba saaxiibayaal aynu ku bilowno waqooyiga dalka Itoobiya dhibaato ayaa ka aloosan waxaana muuqata saansaan iyo waliba muuqaal rasmi ah dagaal dhaxmara dowladda uu hogaaminayo Abiy Ahmed iyo ciidamada Tigrayga oo dowladdu ay ku eedeynayso in ciidamo Eritrean ah ay ku jiraan. ciidanka waa dowladda Itoobiya waxay sheegtay in faano dhaawacyadeeda iyo xarunteedii laga dhigay Maqale oo isbitaalka Maqale lagu arkay dhaawacyada jabhadda xagjirka ah ee faana ee ka dhaqaaqda deegaanka Amxaarada, taasi oo muujinaysa in ay heshiis rasmi ah ay yihiin markan faano iyo Tigrayga oo iyagu dagaalkii hore si weyn isaga hor imaaday oo waliba dhibaatadii ugu badneyd deegaanka Tigrayga la sheego in ay faano ka geysatay dagaalkii qaraara ay soconayay sanadii 2021. haddii aynu ku soconno saaxiibayaal xogihii ugu dambeeyay ciidanka Tigrayga ayaa wali ku sugan qaybo kamid ah deegaanka Canfarta waxayna sii sameynayaan horumaro inkasta oo xalay la duqeeyay saaka aan dhehe haddana wali howlahoodii ayay sii wadaan. maamulka Canfarta war ay soo saareen ayay ku sheegeen in Tigraygu ay laayeen dad shacab ah oo u dhashay deegaanka Canfarta sidoo kaleetana ay dad kumanaan ka badan ay ka barakiciyeen deegaanadoodii oo tuulooyin iyo dhul ka tirsanaa deegaanka Canfarta oo hor leh ay la sii wareegayaan marba marka ka dambeysa ciidanka Tigrayga ee ku sugan gudaha gobolkooda. sidoo kale maamulka Canfarta warka ugu dambeeyay ay soo saareen ayay ku sheegayaan in hub culus ay Tigraygu u adeegsanayaan dadka shacabka ah ayna geysanayaan dhibaato aad u badan oo aysan u kala aabayeeleynin deegaanada la degan yahay iyo kuwa aan la deganayn. ciidanka Tigrayga waxaad moodaa inay meesha ka saareen jabhaddii deegaankaasi lagu tababarayay ee Getachew Reda ee hoostegay iyo ciidanka Canfarta ee hadda Tigraygu ay ku sugan yihiin joogay wixii dhanba dhinac dhan oo gobolka Canfarta iyaga ayaa hadda keli ku ah iyaga ayaana ka dhaqaaqaya waxayna u muuqataa in looga kala cararay. Tigraygu war isdaba joog ah ayay soo saarayaan waxayna leeyihiin duqeymo saaka dowladda Itoobiya ay geysatay oo ay ka geysatay meelo badan oo kamid ah deegaanka Tigray ayaa dhibaato xoogan ay ku gaadhay dadka shacabka ah. dad badan ayay sheegayaan in duqeymahaasi ay ku dhinteen. diyaarado drones ah ayay sheegeen in loo adeegsaday meelo gudaha Tigrayga ah iyada oo ay Tigraygu warkaasi soo saareen ku sheegeen in dad shacab ah oo ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay iyo burbur soo gaaray deegaanadii la duqeeyay intaba uu jiro. Tigraygu war-saxaafadeedku ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in Canfartu marna ay qaylanayso marna waxa dhibka sameynaya iyagu ay yihiin. mahmah laynoo sheegay in Axmaaradu ay ku mahmahdo ayay u soo qaateen taasi oo ah warafka bahalka la yiraahdo ee shimbirta beerta lagaga celiyo
warafkaas isaga ayaa wax tuura oo wax lagu tuura kadibna markii wixii lagu tuuro ayuu haddana cabaada oo dhawaaqa ayay yiraahdeen yacni warafku waa xarig dhexda loogu sameeyay meel dhagax iyo waxyaabo kale la gelin karo labada dhinac ama fayga dhinacna bulad ayuu ku leeyahay marka dhagaxaasi lagu tuuro la soo celinayo ayuu buladka uu dhinac ku lahaa isku dhacaya oo dhacayo oranaya markaas mahmahdan waxay u soo qaateen canfarta oo leeyihiin iyaga ayaa dhibaatada wada oo geysanaysa haddana iyada ayaa cabaadaysa waa halka Soomaalidu ay ka tiraahdo hasha geela cunta haddana iyada cawaada si kastaba waxay sheegeen in aysan iyagu wax dhib iyo dagaal ah ka wadin deegaanka canfarta oo ay u direen odayaal arrimo labada deegaan dantooda kala hadlaya balse aysan jirin duulaan ay ku qaadeen dhabtusa waxay tahay in ciidanka Tigreegu ay si rasmi ah ugu sugan yihiin gudaha deegaanka canfarta intaas haddii aynu sidaasi ku dhaafno Getachew Reda iyo General Tasatar ayaa la xaqiijiyay in iyaga oo ciidamo hogaaminayo oo militariga Ethiopia iyo qaybo jabhadooda kamid ah ay xadka ka tilaabeen oo dhankaasi iyo Tigreega ay ku sugan yihiin halkaas waxa dagaal ay kula jiraan qaybo kamid ah ciidanka Tigreega waxaana ay hadda markan leeyihiin labada nin oo isku xigeen ahaa madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Tigreega ku xigeenkiisa isu ahaa balse Tigreegu ay soo eriyeen oo waayahan Abiy Ahmed hoosta kaga jiray oo la taliyaal iyo wax u ah waxay doonayaan in dagaalka uu qarxo oo Tigreega meesha laga saaro oo iyagu ay ku wareegaan gobolka Tigray laakiin sida ay ugu socon doonto lama yaqaano waa hagaag iyaga ayaa hadda horboodaya dagaalka isla markaana ciidamo badan oo jabhadooda ah iyo sida la sheegay militarigaba isugu jiro ayaa dhankaasi iyo gobolka Rayo ay kala tallaabeen ciidankaasina waxay la kulmayaan dagaal sida aynu wararka ku heleyno inkasta oo dagaal goosgoos ah uu yahay oo wali aan la xaqiijin dagaal markaasi jilibka la isku dhigo oo la isku hoobtay wali lama soo sheegin laakiin isku dhacyo ayaa la xaqiijinaya iyo is-horfadhi oo cabsida ugu badanna hadda ay meesha ka taagan sidoo kale wararka dhankaasi iyo deegaanka Axmaarada ka imaanaya waxay sheegayaan in xadka saddexagalka ah meesha la yiraahdo Humeira ay iyadana dawladda Ethiopia ciidamo ay ku daabushay oo hadda Tigreega iyo ciidanka militariga Ethiopia iyo sidoo kale maleeshiyaadkoodu ay ishor fadhiyaan ciidanka Tigreeg si saf ballaaran ayaad moodaa inay u baxeen ciidanka ay maamusho dawladda Ethiopia waxaana suurtagal noqon karaysa in dagaal lagu hoobto uu dhaxmaro Ethiopia waxay qabtaa in Tigreega aan heshiis la geli karin oo aan la aamini karin ayna qasab tahay in markaasi meesha laga saaro gabi ahaantoodba oo si rasmi ah loola dagaalamo Tigreega naftirkooda waa bini'aadmi Abiyina wuxuu doonayaa inuu hoosta gashado oo uu sida uu doonayo uu ka yeelo oo sharci iyo xirsitoona aysan ogoleen oo uu baabi'iyo oo uu meesha ka saaro taasi ayayna iyaguna diidan yihiin runtii in 100% ay doorteen dagaal ma ahan hase ahaatee waxna waa siyaasad waa la isdiidan yahay mid walibana taageeridiisa iyo wixiisa ayuu wataa hadda waxay u muuqataa dagaalkan inuu qarxay haddii ciidanka Ethiopia iyo jabhadihii Abiy Ahmed uu tababarayay ay ciidanka Tigreega dagaal kula jiraan oo xabadu ay dhacday meelo badanna la isku sii socdo oo la is hor fadhiyo dawladda Abiyna ay duqeymo geysanayso waliba kala dambeeyo oo ilaa iyo in caawa la sheegay in meelaha qaarkooda ay dawladda Abiy duqeymo ay ka geysanayso awoodda ugu badan ee Abiy Ahmed uu haysana waa duqeymahaas oo ma haysto waxyaabo kale waa hagaag dhanka kaleeto labada dhinac mid kasta waxa uu soo saarayaa war-saxaafadeed kala duwan oo la xiriira in midba midka kale uu sheegayo in iyagu ay guusha raacday dhankooda wixii soo kordha waan idin la wadaagi doonaa intaas ayaana qaybtan ku soo afmeeraya anfac